dhulweynaha Soomaaliya ee Geeska Afrika waa meel hooy u ah xadaarad ilbaxnimo iyo taariikh hore sida ay u leeyihiin dalalka Masar, Greega, China iyo India. waxaa jira magacyo loo yaqiinay xadaaradaha soo maray dhulweynaha Soomaaliya ka hor Islaamka. maamulada qadiimiga ah ee soo maray dhulka Soomaaliya waxaa ka mid ah boqortooyada Uduga, Land of Punt iyo Land of Berberis. taariikhyahano reer galbeed iyo carab ah ayaa xaqiijiyay inay jiraan agabyo cadeen u ah raadraaca xadaaradda iyo taariikhda Soomaaliya. tusaale ahaan waxaa la hayaa taalooyin dhismayaal sida ahraamaadka u samaysan, derbiyo dhagaxaan ka samaysan iyo burburka magaalooyin aad u faac weyn. waxaa kaloo jira agabyo sida pottery ama dheriga ama faqaarka ka samaysan oo laga helay dhulka Soomaaliya oo laga keenay asal ahaan xadaaradaha waaweyn ee caalamka soo maray sida Masar iyo Roma. Lasgal ama Lasgale waa goob taariikhi ah oo ilaa hadda ay ka muuqdaan qoraalladii, farshaxankii iyo sawiradii lagu sawiray dhagaxaanta ama looxyada moqorada Lasgale kumanaan sano ka hor. Lasgale ama Lasgal waxay ku taalaa duleedka magaalada Hargeysa, waqooyiga Soomaaliya, meesha haatan loo yaqaano Jamhuuriyadda Somaliland. taariikhanada baara raadraaca taariikhaha ayaa sheega ugu yaraan 9,000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam in goobtaasi ay jirtay. Lasgale waa xadaarad iyo taariikh qadiimi ah oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay una baahan in la naashnaasho ama la qurxiyo iyadoo asaamaha raadraaca taariikheed laga suulinaynin si dalxiisayaasha caalamka ay u booqdaan taariikhdaasi. derbiga Wargaade ama Wargaada Wall waa derbi ka samaysan dhagaxaan oo si la yaab leh ay uga muuqdaan farsamo hore oo ilbaxnimo ku salaysan. sidoo kale Wargaade ayaa lagu sheegaa in ay ahayd magaalo qadiim ah oo burburtay oo ay deganayd maamulkii ilbaxnimadii Soomaaliya ee Land of Punt. dhulka Soomaaliya oo dhan xilligaasi waxaa loo yiqiinay dhulkii Uduga. meelaha u dhow derbiyada Wargaade ayaa sidoo kale laga helaa dhagaxaan isku dul saaran sida ahraamaadka masaarida oo kale. derbiga Wargaade iyo dhagaxaanta kale ee laga helo deegaanada bari ee Soomaaliya waa kuwa muujinaya in Soomaaliya ay lahayd ilbaxnimo weyn oo la mid ah ama ka weyn ahraamaadka masaarida iyo derbiga Shiinaha ee taariikhiga ah. dadka dowladaha Masar iyo China ku nool waxay u istaageen nooleynta xadaaradooda, waxayna ka dhigeen meelo loo dalxiisago oo ka mid ah ilbaxnimada caalamka. laakiin nasiib daro, Soomaaliya weli ma aysan yeelan dowlad dhexe oo u istaagta xifdinta ama ilaalinta ilbaxnimada iyo taariikhda dadka Soomaaliyeed tan iyo sanadii 1960kii. bugaagta taariikhyahanada caalamka ay keediya xadaaradda dunida ayaa ku qoran in Soomaaliya ay yaalaan taalooyin, dhagaxaan iyo derbiyo gaboobay oo ku yaala qaybo ka mid ah Soomaaliya oo dhammaan muujinaya xadaaradda faca weyn ee ka jirtay dhulka Soomaaliya, taasoo ay ka tagtay boqortooyadii Soomaaliyeed ee Land of Punt.